haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi thumma wallaahi thumma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad tahay markii kugu horeysana soo booqatay fadlan subscribe saar oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiisa leh madaxweyne Farmaajo oo baxar dhaxda ka galay isla markaasina labada aqal gudoomiyaashood ayaa u tashay isla markaasina la leeyahay madaxweyne Farmaajo haddii uusan saxiixin sharciga doorashooyinka asagana waxaa la leeyahay waxaa la saarayaa cadaadis aad u xooggan labada gudoomiye ee aqalka sare iyo baarlamaanka waa Mursal iyo Cabdi Xaashi ayaa kulan xasaasi ah isla markaasina labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya uu heshiiyay go'aan ka dhan ah madaxweyne Farmaajo kulan dhexmaray gudoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa looga heshiiyay arrin oo ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedii halkaasi ku sugan xog ay heshay warbaahinta calansida media ayaa sheegaysa in kulankan oo ka dhacay guriga gudoomiye Mursal loogu hadlay sharciga doorashooyinka Soomaaliya ee dhawaan ay ka soo gudubtay baarlamaanka hoose isla markaana hadda hor yaala golaha aqalka sare oo hogaamiye Cabdi Xaashi Mursal iyo Cabdi Xaashi ayaa ka heshiiyay in aan la xirin kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka ilaa madaxweynaha ka saxiixo sharciga doorashooyinka qaranka kaas oo la filayo inay ka hor 10 bisha Febraayo ay meel mariyaan aqalka sare gudoomiye Mursal ayaa Cabdi Xaashi u sheegay in sharcigan oo ay diidan tahay madaxtooyada oo madaxweyne Farmaajo mas'uul ka yahay ay soo ansixiyeen golaha shacabka haddana ay doonayaan in aan kalfadhiga la xirin ilaa madaxweynaha ka saxiixo maadaama uusan raali ka ahayn madaxweyne Farmaajo ayaana waajib tahay in lala ogaado ka hor inta uusan kulanka xirmin ayaa la yiri Farmaajo waa uu diidan yahay sharciga doorashooyinkii baarlamaanka soo ansixiyay inuu saxiixo isla markaasina waa meermeerinaya wuxuuna doonayaa qodobo halkaas muhiim ah in laga bedelo waxna lagu daro si kastaba ha ahaatee labada baarlamaan ayaa hadda u heshiiyay isla markaasina rabooshihii Farmaajo ayaa guddeer ku galay Cabdi Xaashi ayaa sheegay in guddi ay u saareen sharcigan isla markaana ay dhawaan ansixin doonaan isla markaana uu raali ku yahay in uusan kalfadhiga xirmin ilaa dalka uu ka yeesho sharci doorasho oo dhab ah sida caadiga ah kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa qorshuhu ahaa in la xiro 10 bisha Febraayo waxaa la filayaa inuu dhaafi doono haddii aysan isbedel xaaladda ku saabsan doorashooyinka qaranka uusan isbedelin si kastaba ha ahaatee Farmaajo ayaa gudkiisa biyo u galay isla markaasina rajadii ugu dambeysay ayuu iminka la kulmaya dhinaca kale xiisad cusub oo ka dhex qaraxday Somaliland iyo Djibouti iyo dowladda federaalka Soomaaliya qayb ka ah xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xariga internetka oo magaciisu yahay Dare oo dowladda Djibouti shaacisay inay soo marsiinayso badda Berbera Somaliland ayaa si cad u sheegtay in dowladda Djibouti ayna wax xiriir ah kala soo sameyn arinta xarigaasi internetka ay ugu magac dartay Dare kaas oo la marin doono magaalooyinka Berbera Muqdisho iyo Mombasa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Somaliland oo arintaasi wax laga weydiiyay ayaa sheegay in dowladda Djibouti aysan wax dalab ah uu soo ku aadan xarigaasi uu soo gudbin isagoona xusay in ogolaansho la'aan xarigaasi la soo marin doonin badda Berbera ee Somaliland dowladda Djibouti ilaa hadda nagalama soo xiriirin arinta xariga internetka Berbera wuxuu yiri haday dowladda Djibouti naga codsato waxaa loo eegi doonaa oo yiri xeerka haduu ogolaanaya markaas baa la siin doonaa liisan ogolaansho ayuu ka wadaa laakiin ilaa hadda nagama soo dalban ayuu yiri wasiirku xukuumadda Somaliland ayaa hore u siisay heshiis ogolaansho ah dhanka xadka ah ee internetka ee shirkadda Somcable midaasi oo loo ogolaaday muddo dhan 25 sano oo saxiixay baarlamaanka Somaliland dowladda Djibouti ayaa si rasmi ah u shaacisay maalinta Isniinta ah xariga internetka ee Dare kaasi oo Berbera qayb ka tahay magaalooyinka la soo marinayo xariga internetka markabka xariga internetka sida ayaa la sheegayaa inuu u soo jihaystay dhanka iyo Berbera isagoo oo aan wax ogolaansho iyo ka haysan xukuumadda Somaliland ee hogaamiye Muuse Biixi midaasi oo xiisad cusub ka dhex abuurtay karta dowladda Djibouti iyo Somaliland wararka qaar ayaa sheegaya in dowladda Djibouti ay ogolaansho uga soo qaadatay xarigaasi in badda Berbera la geersiyo dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne Farmaajo iyo Khayre ee hogaamiye labadaas qofood
si kastaba ahaatee xiisada ayaa aad u cakaran islamarkaasina somalilan ayaa iyada ku dooda inay tahay dal madax bannaan inkastoo ay beesha caalamka ka haysan aqoonsi buuxda una arkaan maamul ka tirsan dowladda soomaaliya ee madaxweyne farmaajo hogaamiye haddana inta badan waxay u dhaqantaa sidii dowlad madax bannaan xiisada cusub ee ka dhexaysa somalilan iyo jabuuti kana qayb tahay dowladda federaalk soomaaliya ayaa maalmaha u socdo laga yaabaa inay dowladda farmaajo ee ka hadasho ama jabuuti ay joog bixiso halkaan naga daawanaysa waa calansida media fadlan nala joog in dowladda federaalk soomaaliya ay u hanjabtay xildhibaanada garabka ahlu sunna wal jamaaca islamarkaasina odayaashii halkaasi ku sugnaa ay siisa lacag aan caadi ahayn oo iminka u qaybisay islamarkaasina odayaashii ayaa lagu jiheeyey xildhibaanada 20 ah ee ahlu sunna wal jamaaca islamarkaasina sheegeen haddii 12 saac gudahooda aad kusoo xaroo waysaan xildhibaano ahlu sunna waaye islamarkaasina shartiga lagala laaban doono xaaladda ayaa sii kacaysa kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ay iminka lacag malaayiin ah ku farqisay odayaashii dhaqanka odayaasha saxiixayaasha qaar ka mid ah oo xildhibaanada galmudug ayaa ugu goodiyey xildhibaanada ahlu sunna ugu jira baarlamaanka galmudug in ay bedeli doonaan haddii ay kusoo xaroon waayaan 12 saacadood gudahood islamarkaasina ay shartiga la laaban doonaan odayaasha oo kulan ku yeeshay xarunta guddiga doorashooyinka ee shirka dhuusamareeb ayaa saxaafadda u sheegay in xildhibaanada ahlu sunna ay ugu baaqayaan soo xaadirinta xarunta muddo 12 saacadood gudahooda haddii aysan soo xaadirinna ay ku bedeli doonaan xildhibaano kale sida ay hadalka u dhigtay sida ay warbaahinta ogaatay odayaasha ayaa wada hadallo saacado badan qaatay la yeeshay wasaaradda arrimaha gudaha oo kulan gaar ahaa kaas oo abaabulay waxayna ay gunaanadka kulankoodii soo saareen baaq ay u direen 20 xildhibaan ee ka soo gala ahlu sunna wal jamaaca dhankeeda islamarkaasina odayaasha ay soo saxiixeen wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lacag aan rasmi loo ogaan karin tiradeeda u qaybisay odayaasha wuxuuna qorshahaasi mar kale ku dhawaaday inuu fashilmo markii ay odayaasha sheegeen inay yar tahay lacagta ay wasaaradda bixin rabto taas oo keentay in mar kale lacagihii la badiyo islamarkaasina la isku fahmo tirada lacagtaasi taas oo meesha ka dhigan odayaasha markii hore lacag yar ayaa loo keenay islamarkiina waxa ay dhaheen lacagtani waa yar tahay markii dambe odayaasha ayaa lacagihii loo badiyey wasaaradda arrimaha gudaha ninka wasiirka khayr u shaqeeya halkaasi lacag ku badiyey arrintani ayaa u muuqata inay sii xoojin karta khilaafka xooggan ee ka jira dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo muddo badan u xayiran khilaaf u dhexeeya ahlu sunna wal jamaaca iyo dowladda dhexe saacado ka hor ayay ahayd markii xildhibaanada garabka ahlu sunna wal jamaaca ay saareen jadwalka doorashada kale ee ka dhici doonta dhuusamareeb waxayna taas muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay xiisada u dhexaysa labada garab islamarkaasina ahlu sunna wal jamaaca iyo garabka saddexaad oo xaaf islamarkaasina halkaasi kasoo halgamay gaalkacyo asiga naftiisa oo ku howlan yahay dhisitaanka maamul cusub dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa inay galmudug geyso madaxweyne ay iyadu wadato si ay uga fushato danaheeda gaarka ah siyaasadeed ee doorashada la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya 2020 horaanteeda waxayna qayb ka tahay cadaadiska ay ka hayso maamulka goboleedka ee dalkaasi si kastaba haatee xaaladdu waa wash meel kasta waa cadaadis ayaa ka socda qeyldaantu waa isdaba joogtaa